madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa shir gudoomiye shirka khamiislaha ee golaha wasiirada ee maamulkaasi oo toddobaadkan looga hadlay qodobo muhiim ah. Shirka ayaa toddobaadkan looga hadlay arrimaha amniga, xakameynta xanuunka COVID-19 iyo dardargelinta qorshayaasha loogu adeegayo shacabka deegaanka koonfur galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa golaha wasiirada la wadaagay halka ay u mareyso waan ay ka dhaxwadaan khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble. Kulanka markii uu soo idlaaday wasiirka warfaafinta koonfur galbeed Soomaaliya Ilyas Cali Nuur ayaa warfidiyeenka la wadaagay qodobadii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Geeko oo taariikhdeeda 28/9/2021 may banin qabsoomay shirkii golo wasiirada shirka golo wasiirada may balin ku hadalay dhowr qodob iyo lin ku hadalay anka horeeya safarkii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo uu sakadeeri magaalada Muqdisho safarkaas madaxweynaha may banin ku warbiyay golo wasiiradu san sheegay intii may leeyahay habraacii doorashooyinka laaska afgordi sidii doorashooyinkaasna liin dardar gali lahayna la iska afgordi dadkii liin xil saar lahaayay masa may leeyahay la iska afgordina intii naftushoona may leeyahay training badan la siiyo doorashooyinkaas sidii liin tababar lahaay badan ayuu nin ku warbiyay madaxweynaha taasna la iska afgordi iyo khilaafkii dowladda federaalka madaxda saraakiin dhaxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha intii may leeyahay kaalin ku qaaday madaxweynaha sharafta leh kaalintaasna uu meel fayl marsiyaayeen oo siina safar gaaban waxaan ka bahi caasimada ku meel gaarka magaalada Baydhabo laakiin haku ku tabi howlo iyadoo meel fayl maraasa waana sidoo ka hamil dheeriye ama ka rajo dheeriye intii la gabagabeeyay doono guulna ka dhamaada doonta yar rajay madaxweynaha yana nin ku warbiyay iidan kama sinyi may kale doo ku hadalay wasiirka amniga u siina guutaan amniga deegaanada koonfur galbeed u siina nin ku warbi amniga koonfur galbeed xaaladii iidan faylata alxamdulillah ilaahayni zaa'idi inkastoo nimanka nabadiidka iska dayayaan intii may leeyahay amnigaas qalqalgeliyaan oo xirfad kasta ama si kasta biyoon adeegsadayaan sidii amnigaas iyo ku horseeda lahaayeen ama an qalqalgeli lahaayeen laakiin may barooge laamo ammaankiya roogan yoona eed anka hoolano sidii ku horseeda lahaayeen dhibaatooyinka nimankaas mareegayaan taas guutaan may bahaytay amniga yahayti may kaleedoo warbixin lagu dhugun siday wasiirka arrimo gudo usiinayn sheegay golaha deegaanadii intii badan ayoona tareenada badan la sii hayo waana la dhisahayo meel fayl marahayto golihii deegaanada sida baraaw oo kale intii meel fayl marahayto yanin ku warbiyay wasiirka iyo tareenada badan intii la sii hayo marna in iska kooy doonaan shirwin ama meel raayis magaalada Baydhabo oo in iska kooy doona la qaban qaabiyahay oo madaxweynaha daahfuro doona sidii yoona tareenada badan la sii lahay horumarkan aan ku shaqeey lahaayeen oo iyo doorashooyinkii aan ku shaqeey lahaayeen golaha deegaanadaasna yoona hooliyo meel fayl marahaytay iyo wasiirka ku warbixiyay may kaleedoo warbixin lagu dhugun siday wasiirka xanaanada iyo xoolaha usiino sheegay intii may leeyahay iyo ka dadaalahayaan sidii liin hela lahaay xoolo maadaama reer koonfur galbeed iyo ayin dad xoolo dhagata iyo badanyiin sidii xoolahaas liin ku horseeda lahaay cudurrada aafiyay mas cudurrada ka dhiyayaan liin daaway lahaay iyo wasiirka ku warbixiyay marka intii xoolo badanna may leeyahay daawooyin soo yeesheen oo hatta viril ka dhiibayo may leeyahay lankii xoolo ku xanuunsan wasiirka ka warbi intii may leeyahay iyo gacan sii doonaan dad badan liin tababaray deegaanada deeri doonaan qaarshoon hadda ka shaqeeya agaasima aan koreeyo barnaamijkaas iyo ka maqooniyay wasiirka warbixiyay sida saas oo kale may kale dol wasiirka ka daray intii shay baar hatta iyo dhiseen koonfur galbeed la ka dhisi may leeyahay xoolahaas la ka daaway doonaan may kale doo warbixin lagu dhugun siday wasiirka diinta iyo ooqaafta iyo warbixin lagu dhugun siday oo safarkii u siiyo wasiirka cadaaladda iyo garsoorka iyo ka seedan xudur iyo ka seedan degmada xudur iyo ka seedan yaa lagu dhugun siday yoona aan bahan arama meelaas ku jaray si oo aan xalliyan daraadiyo kama qanaayeen aramoogina may ba nin sheegana intii halkii iyo deerano ilaahay in fududay Qadar Ali Jumcaale VOS TV Muqdisho.